wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar indhayn ah ku soo maray gobolka Gibiley waxaanu kormeer ku soo maray garoonka casriga ah ee ka socda dhismihiisa gobolka Gibiley oo loogu magac daray orodyahanka caanka ah ee Mo Farah iyo waliba meelaha dalxiiska loo tago ee asaabta qadiimiga ah ku duugan tahay oo ah duleedka magaalada Gibiley sidoo kale wuxuu warbixin ka dhageystay maamulka gobolka Gibiley iyo ka degmada iyo waliba isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Gibiley halka waxaan ku soo dhaweynaa maanta wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu oo u socda kormeer ay ku eegayeen hawlaha wasaaradda ee ka socda gobolada khaasatan gobolka Gibiley saacadu wasiir adiga iyo wafdiga hogaaminayso waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada caasimadda gobolka waxaanu joognaa hadda garoonkii Mo Farah Stadium oo dhismihiisu socdo waxaan hore u soo marnay garoonkii kubadda kolayga iyo sidoo kale halkii dhagaxa maroodiga ee ahaa goobaha dalxiiska ku yaala magaalada Gibiley saacadu wasiir waanu ku faraxsanahay in kormeerka noogu timaado waxaan hore uga soo wada hadalnay wixii baahiye ka jira gobolka iyo wada shaqaynteena iyo sidoo si xoojin lahayn waxaanu ku faraxsanahay runtii in wada shaqayn dhow ay naga dhaxayso maadaama aad tihiin wasaaradda mandate-ka u leh inay jihayso horumariso xoogga ugu badan ee qaranka leeyahay annaguna aanu inta badan waxa weeye door ku leenahay haday tahay ururada haday tahay maxaan ku raadayay readerska haday tahay ciyaartooyga iyo haday tahay dhalinyarta waxbarashada wadaba guud ahaan dhalinyarta runtii mashaariic badan baanu kala shaqeynaa sanadkan laba mashruuc oo aad iyo aad muhiim u ah dhalinyarta ayaa runtii qorshaha noogu jiray labada mashruuc mid waxa weeye stadium-ka ayimka joogno oo nu jecel lahay inuu noqdo stadium standard caalami ah oo aanu kaga duwanahay dalka intiisa kale oo lacag badan ku baxayso stadium-ka wasiir lacagtiisu waxay noqonaysaa lacag $300,000 ku dhow haddii aanay ka badan maadaama dhismihiisu sii socdo marka macal rooga aanu ku darno waxa noo weheliya inaanu mashruuc isaga aanu ku larnay oo isaguna ay ku bixi doonaan $270,000 ay israaci doonaan mashruucaasi waa wado iyo bridge wada socda oo stadium-ka ku soo xilbi doona waxaan aad iyo aad runtii ka wasaarad ahaan annagana sharaf iyo farxad baan noo adeeg mashaariicdan ka socota gobolka ee garoonkani ka mid yahay iyo waxa weeye youth center-ka uu sheegay mayorku sheegay oo sida uu sheegay rasmiya oo sida ugu dhaqsaa badan insha Allah uu bilaami doona Gibileyna maanta aad baan inagu mahadnaqayaa si aad noo soo dhaweyseen iyo si aad noo maaragtay milgaha maaragtay soo dhaweyntiina leedahay aad u sareeyo aad baan inagu mahadnaqayaa iminkana waxaan dhex joognaa waa garoonkii aad u talagteen stadium-ka aad buu noo cajabiyay wax badanna waan ka dhex arkaynaa inuu insha Allah ilaahay inoo fududeeyo ku wax maaragtay dalka Gibiley maahina dalka wax ka tarana inuu noqdo nifa safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku yimaado wasiirka wasaaradda ciyaaruhu tan iyo intii loo magacaabay wasaaradda waa Cabdisalaam Axmed Bade Bulsha TV Gibiley